iyo waxaa baratay beentii ninbaa waxaa been badan buu sheegay kan ugu dambeyntii wax ay sheegeen wixii colaadbaa soo socda waa kusii dagaalaa soo socda waxaa la yidhi beenkiisa dhulku ku galaagaysin baa la yidhi oo halkaas ku guuday marka dhulka la galay markii anoo been sheegaya waa ka jirteen dabano galaagala وأنا وأنا جدا من قبول ومسؤول بالحياة من التأمين إلى حساب طبق بعد وعن وضع إلى حساب الله وعن وضع إن حساب سيد عن إلى هذه أكبر وحدود وليس الأطفال من حتى درجة يدوها سيد عن الذي أكبر إلى هذا الباب سمعت إلى هذا يوم المكة الزوج الثالث أولو إلى الشريك ومن أولو سكر واحد قبل عدالة ذلك يسمى هيا ويلك هيا ويلك عدالة وحن واحد يربع يجلد واحد ولا الجلال وحن شيء عالم قبول البني آدم بني بسيط ومتق على كل سيدا حتى أن شيء السكة جوانا ركان تيم بعد نشأين دون تيم الصومالي يعني وكذا وحاليا يعرف إن سبعة العقل كارثة عليه العقل كارثة وبعد سيرتيفيكيت العقل كارثة ما السيرتيفيكيت واحد مسكر ومبكر على سبعة الدولين
سفارة ديني باسمه iyo socodkeedii iyo nidaamkeedii ilaa muddo gaaban waxaad dhashay weeye ilaa ay ka socod baranayso ay ka ordayso inaad la daba joogtaan waxa ay idinka dhacayaan qaar ka mid ah inaad intaad soo reebtaan safaaradii ku badbaadin lahayd adiga aad siisid intaasaad idinka codsanaya account not record banki record wax aad tahay iyo wax investment lacag sameynaysaa dadkii ayaa service ku qabanaysaa adoo waa nin ummadii wax ka dhacay oo haddana isqarinaya oo haddana mataqaanaa qaabkiisa aan la ka tegin oo jaadki haddii la fidiyo qof kastaba lacag badan ay ku jirto tuuga halkaa taagan ka qaadana baabuur baa lagu qabtay leeyahay mataqaanaa hal milyan oo dolar isagoo ordaya laga dhaca waxaa waaye qof kasta adduunyada adoo dahab madaxa korkiisa saartay 5 kiilo oo dahab qof kasta ku dhacay waa lagu dhacaya waxaa idinku rabaa inaad iscafisaan soomaaliya aan iscafin 300 oo sannadood waddanka laga gumaysanaya 94 markii gobonimadiisu qaatay oo annagana 4 sano markaas dagaal sokeeye loo socday oo aan hataa la hadli karin dowladda South Africa oo aan la dhihi jirin abaalkii aan hadda dadin galay baan idinka rabnaa ayaa waxaan helay ayagii inaan annaga aan qaxooti ku soo noqon waxaa weeyaan ihaano aad u weyn waxaan rabaa in la iscafiyo waxaan rabaa in dadka loo yimid oo mujtamaca South Africaanka ah arrimo fara badan oo la soo gaaraya qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda South Africa laga soo gaaraya waxay sheegayaan in dadka yaga ixtiraam aanan u lahayn mujtamacii ayaga ay u yimaadeen waa ka xunna adiga xisaabtaada ku dar gobolkaaga Soomaali meesha aad ka dhegeysid adaa yaqaana haddii lagu yimaado dad South Africana mise Angola dukaankaaga ay dukaamo ka furtaan dowladdaada markaad wax ka gadatidna lacagta gacantayda taabanayna sidaas aad ugu tuurtid oo kii chiefka meesha ka ahaa iyo kii hogaamiyaha ka ahaa aadan ixtiraamin oo qofkaaga aadan u shubaynin boyfriend iyo girlfriend iyo waxaad ay leeyihiin gaalo waayo oo aad u qabo intaad faraha gelisid aad mataqaana dhibaatooyin iyo aad ku samaynaysid intaasi oo dhanna mataqaanaa dadka waxay iga dagaalamayeen 300 oo sannadood ay yihiin oo caddaanka ay diideen adoo qaxooti ah oo Soomaali ah rabtid inaad hadda ku samaysid mataqaana aad tahay waxaa weeyaan wax la qaadan kara maaha ixtiraamka carabtu waxay tidhaahdaa idaa akramta kariiman tamamata qofka bani aadamka oo sharafta leh haddaad ixtiraamtid asagoo dhan baad dhalanaysa kelimadan addoon waayo aad leedihiin keedina waa la bartay kuwaana waa bartay inay barteen ayaa idin sheegaya nin ayaga ka mid ah oo intelligence-ooda iyo muqaabalaadkooda qaabilsan oo annaga saaxiibnahay ayaa wuxuu igu yidhi annaga caddaankii addoon in la yidhaahdo haddana kadib addoonan ahnaan addoonnimada doonama gariyaa waxaan rabaa in aan howlo badan isla qaban doono waxaan rabaa inaad u diyaargarowdaan in guddiga la yidhaahdo guddiga taakulaynta safaaradda Soomaaliyeed Somali Embassy Supporting Committee in aad sida ugu degdegsiimo badan aad mataqaanaa isaga qabataan halkaasi 4 baa u talaqaaday halkaas 5 baa u talaqaaday dhulkaan dhul weyn
fiican oo soomaalida lagu kasi jiray dadkan halla tuso waxaa laga maqan waxa la yidhaahdo civic education ixtiraamkii aan laga tegin anigana waxaad igu haleynaysaan wax allaale wixii xaqa oo wadankaan idinkaga maqan inaad ku dhinto ayaan hortiina ku dadaqaanay annaga sida tabliiq oo kale ayaan u socnaa sida safiir ula socono safiir waxaa lagu yaqaanaa baabuur iyo calan oo badbidaya iyo mataqaana mata iyo xafiisyo iyo guryo iyo wixiisi oo dhan waxaan hadda aniga aan u shaqaynayaa yuxilka ilaa hadda kontraadkeedu wuxuu dhacayaa December oo bishan ah waa 5 bilood hadda kadib laakiin waxaan kansalayaa bishan aan ku jirno July 30 ayaa baa inaan kansalo oo aan arrintaan usoo jeesto oo aan hoshaasi mataqaana gabadhaan usoo jeesto oo aan ballanqaadkii aniga aan mataqaana ballanqaaday ilaahay hortiisa ku guriyo waxaan ilaahay idinka baryayaa xoolaha aad haysataan ilaahay idin barakeeyo inta yar ay haysataan ilaahay idin barakeeyo ilaahay mataqaana ka